sidoo kale waxaa heer gabagabara maraya doorashada xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya u matali doona Hirshabelle iyadoo maanta magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe ay ka dhacday doorashada xildhibaanada sida uu ku soo waramayo Abuukar Maxamed Bacadle. tartanka doorashada aqalka hoose ee maalmahan ka socota magaalada Jowhar ayaa maanta lagu tartamay hal kursi waxaana ku tartamay Daahir Amiin Jeesow iyo Xamse Aadan Xadow. tartankaasi kadib ayaa gabagabadii waxaa guuleystay Daahir Amiin Jeesow oo helay cod dhan 30 halka Xamse Aadan Xadow oo keenay 22 cod. guddiga doorashooyinka heer qaran ayaa ku dhawaaqay natiijadii codeyntii maanta. waxay kala ahaayeen Daahir Amiin Jeesow iyo Xamse Aadan Xadow. Daahir Amiin Jeesow wuxuu helay 30 cod. Xamse Aadan Xadow wuxuu helay 22 cod. tirada ergada waxay ahayd 51. waxa laaba ma jiraan way wada codeeyeen. waxaa ku guuleystay xildhibaannimada sanadkan 16 ilaa 20 Daahir Amiin xildhibaan Daahir Amiin Jeesow. musharax Xamse ayaa aragtidiisa ku aadan doorashadii maanta dhacday goreyntii ka hadlay. ugu horeyn waxaan mahad gaar u celinayaa guddiga doorashooyinka dadban ee heer qaran iyo kuwa heer goboleed ee Hirshabelle. waxaan sidoo kale mahad gaar u celinayaa dhammaan taageerayaasha ergooyinkii bahda saxaafadda dowladda federaalka Soomaaliya oo qabatay doorasho xal ah. waxaan hambalyeynaya walaalkay Daahir Amiin Jeesow. waxaan leeyahay waad guuleysatay waan ku faraxsanahay waxaana tahay xildhibaankayga bahda saxaafadda iyo dhammaan waa mahadsantihiin. waxaasna sidoo kale ka hadlay xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo aragtidiisa muujiyay ku aadan doorashadii maanta ay ku tartameen isaga iyo Xamse. aad baan ugu faraxsanahay sida Soomaaliya ee guud ahaan ee gobolkan ugu dhacday doorashada Hirshabelle. adabtii Hirshabelle waxay ahayd goboleedkii ugu dambeeyay ee samaanta waxaan filayaa hal xildhibaan ay ka dambeeyo oo la dooran doona. aad iyo aad ay farxad weyn ugu tahay arrintaas guddiga doorashooyinka dadban ee labada Hirshabelle qaranka iyo kan heer gobol aad bay u dadaaleen. natiijada halkan ka soo baxday aad baan ugu faraxsanahay. awalba xildhibaan baan ahay idiin shaqeeya haddana idinka ayaan idiin shaqayn doonaa hadduu ilaahay yidhaah. dhammaantiin I love you kulli waa idin jeclahay. asalaamu calaykum. magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa maalmaha soo socda lagu wadaa in lagu soo gabagabeeyo doorashada aqalka hoose ee maamul goboleedka Hirshabelle. xildhibaaneed u matalay golaha shacabka waxaana harsan iminka 2 kursi oo qur ah. Abuukar Maxamed Bacadle, Radio TV qaranka Soomaaliyeed, Shabeellaha Dhexe, Jowhar.